horey waxaan u arki jirnay doon dekad ku soo xirata maanta waxaan arkaynaa dekad doon ku xiratay dekadii baa bariga ka timid doontay ku xiratay runtii waxay ahayd isku day sida la sheegay dad badan baa waali u arkayay laakiin way rumowday waxaan aad iyo aad maadaama gudoomiyii shaqadan waday aan ahaa waxaan aad ugu mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay dadkii hantidooda keenay kambariyadii hantidooda keenay shakhsiyaadkii hantidooda keenay kuwii maaragtaa maxaan ku leeyahay dareewaladii baabuurta waday kuwii baalooyinka ku shaqaynayay kuwii shashka fogliftiyada ku shaqaynayay waxaan kaloo u mahad celinayaa injineeradii nala garab taagnaa farsamada oo qaybtood hadda aad loo magacaabay injineer maxamed cabaas baa la magacaabay injineer ciise xasan ciise la magacaabay injineer cabaas maxaan ku leeyahay maxamed cabaas ciid jibriil baa la magacaabay sahal baa injineer sahal baa la magacaabay rag la ilaaway baa jira muuse siciid oo muuse oo noo waday baarjada oo runtii ka mid ahaa mashruuc qaybta ka mid ah waxaa la ilaaway rag kale oo muhiima waxaa la ilaaway injineer ciiw oo gadaashayda taagan waxaa la ilaaway injineer dubbe oo runtii ahaa iyaguna shaqada qayb libaax lahaa dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin cid alla ciddii ka qayb qaadatay gabdhihii noo hiiliyey halkaa nala joogay cuntadana siinayey dhallinyaradii noo hiilisay ciidankii amniga sugayey maamulkiina garab taagnaa kulli waa u mahad celinaynaa wuxuu yidhi ninkii bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taaggiisa habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii cawlaaye raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni bah ilaama goortii dhammaan igu dulbooyaysay bah sarnaysana baga inay tiri beerka ka ogsooni ninkii inuu burunji iga cuno ii bariidinayay aan bar kale ii tarayn beerka ka ogsooni ninkii beel fog jiray ee soona bixi waayey ee inaan bogsado uun jeclaa beerka ka ogsooni haddii lixaad waa baraare uu ii bogsado xooggu haddii biixiyaha ee bahay kay isugu beego abaal badan abaal bara abaal buriya dheeraada nimbakiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hawshan ilaahay baa nagu guuleeyey awooddayada kuma aanaan qaban karin 9 maalmood ayaa 316 mitir oo badan la xabaalay dabeetana dekada aad aragteen baa ka samaysantay insha Allah tacaala meeshan waxaan jecelnahay inay meel dadka anfacda noqoto haddii alla idmo annaga iyo dawladduna waa iska arki doonaa meeshan insha Allah dadku in badan waxay isweydiinayaan maxay ahaan doontaa qof waxa laga yaabaa si fudud inuu yiraahdo waa la baabi'inaya qofna inuu si fudud u yiraahdo waa jiraysaa hawsha iyada waa laga shawri doonaa كل إن شاء الله تعالى إلهي وحنا كبرينا حوق جيجا إنه سن إلهي كدجن هل بعد لقول السي آدي آد بأمهات ستين وحوي دولة آد بأنقوم هاد علينا يا أمان كأي سكتي شقدا أي قبتي عن شرناف كأي قرتي شعب كذا إنه أسميسه كل بآدي آد بأنقوم هاد علينا يا مرة بينان هذا الكبديو صحافة آد بأنقوم هاد علينا يا وحنكرر الجنة يا صحافة إن أنا أفر مع المود ويسكون حكتماشن كم ممنوعي mana ahayn xumaan shaqada inay socotaan rabay runtii maanta baaburka hore barku soo dagay ilma ay soo dhaaftay jirracna way ugu jajabtay hawshaan waa guul mar kasto aan isku tashanana waxbaan wada qabsan karnaa haduu baarigeenu isu tago buuruhu jabin aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiirkan